halkaan naga daawanaysaa muuqaal baahiyaha Dunqa TV oo Faransa waddanka Talyaaniga ee magaalada Faransa warka jiro ka sheegay maanta waxaan soo qaadanaa bishii ay tahay 26 bishii 3 2023 warka jiro ka sheeg waxaan rabaa inaan ku soo qaato maanta Xasan Sheekh Maxamuud oo socdaal ku tagay magaalada Aadan Yabaal halkaasna wuxuu ka jeediyay khudbad meelo badan taabanaysay khudbadaasna wuxuu uga hadlay in beesha Abgaal ay ku sifowday inay tahay beel isbaara ku nool ah waxaan aad iyo aad uga xumahay Xasan Sheekh inuu nala bartay aflagaadadan joogtada ah inuu nagu hayo waxaan aad iyo aad uga xumahay Xasan Sheekh Hirshabeelle oo asiga shalay lu gooyay oo dhibaato ku abuuray oo meeshay maanta taala dhigay inuu haddana ku eedeeyo in ay isbaaristayaal yihiin isbaara ku nool yihiin waxaan rabaa marka ummadda Soomaaliyeed su'aasha aan raba inaan isweydiino ay tahay waxa waaye Xasan Sheekh mas'uuliyadda waddanka yay saaran tahay yaa mas'uulka ah inuu heerkaas u dhaqmo Hirshabeelle waxaa mas'uulka ah dowladda federaalka dowladda federaalka waxay mas'uul uga tahay waxa waaye ciidamada oo dhiganaya isbaarada waa ciidamo military ah ciidamada isbaarada dhiganaya waa ciidamo saraakiil leh ciidamada isbaarada dhiganaya waa ciidamo mushaar ka qaata dowladda ee ma aha dad tuuga ah qowlaysato oo dadka masaakiinta ee baada ma aha dowladda iida dadka baado Xasan Sheekh Maxamuud asiga mas'uulka ah waxa ka dhacaya isbaaradayaashaas asiga mas'uulka ah wuxuu mas'uul uga yahay asiga madaxweyne meeshaas ka ah asaa laga rabaa askarta hawsha u dirsaday kaliya inay qabtaan ee hool kale ayna qabanin asigoo og inay hool dadban qabanayaan ayuu shibka yiri Xasan yoo iska dhignin waxaan wax ka ogeyn Xasan waxaan wax ka og yahay waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego Xasan difaacadii la difaacay maxaa lagu difaacay qofka markuu kugu dangaaro inuu ku aflagaadeeyo oo wuxuu raba ka sheego wax fiican ma aha Xasan Sheekh waxa lagu difaacay oo cirdigiisa iyo sharaftiisa lagu ilaaliyay isbaaradaas oo maanta oo caynayo oo aflagaadeynay waaye waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u biyaaniyo warka oo loo garto waxa runta ee meesha ka jira Xasan shalay markii lagu difaacay isbaaradaas oo asiga lagu soo dhisay waa taageeray lacagna waa ku bixinay waxaan rabaa marka Xasan hadda madaxweyne markuu noqday ma isbaaradii xumaatay mase isbaaradii ay noqotay isbaarad ay hal qabiil ay dhigtaan oo liiraahday Abgaal Xasan kursiga maanta ku fadhiyo yaa ku fadhiisiyay inuu ku fadhiisto yaa qasbay waxaa qasabtay isbaarada badbaado qaran yeeyihiin badbaado qaran wax kale ma aha waa kuwii isbaarista ahay oo isbaarada dhigtay oo isbaarada dadka waxay ka qaadayeen macnaa qoryo ku gatay hub ku gatay xabada ku gatay naftoodana ku difaacayo dadkeena ku difaacay cid kasta oo magac la sheegatana ku difaacayo waa ma aha in laga abaal dhaco dadka isbaarista ahay in laga abaal dhac ma aha ayaga haday ahaa laheen dowladda maanta dhisan ee Xasan Sheekh oo ku fadhiyo wallahi iyo billahi ni'ma lehen farmaajo ciidamo kala nooc oo u dhistay oo ah sidii waran oo kale sidii gorgor oo kale sidii harab cad oo kale duufaan oo kale intaas oo ciidan u sameystay oo rabo waddanka inuu ku boobo dadka ka celiyay ahaayeen waa su'aasha meesha taalo in la isweydiyo u baahan waa taas Xasan waddankan madaxweyne ka noqday 11 bilood bariya uga haray
حسن ديارو سيفولا ديارو سوفولا عيدا مداس oo 24 meesha lagu soo weeraray 3 bilood ayuu cidleeyay 3 bilood aan wax la siinaynin ee waxay cunaan ay haysanin oo waxaan ku yiri lagu rafaaday oo dadkii dhulkaas ka dhashay lacagtay haysteen ay gelinayeen xasan sheekh waa raaxaysanay diyaaro hore iyo gadaal u raacay intuu raacay 47 jeer ayuu diyaaro hore iyo gadaal u raacaa marka xasan sheekh inuu hadda nagu soo jeesto oo na aflagaadeeyo oo yiraahdo isbaaro ku nool way abgaal inuu yiraahdo xaq uma laha waxaan rabaa umada bal harto nala dhageysta xasan sheekh soo u hadlaayo iyo wuxuu sheegayo macna asigoo ismooday nin isbaara aan wax ka soo cunin oo kursiga meesha uu ku fadhiyo isbaaradaas uu ku yimid oo aflagaadeena maanta uu ku yimid nala dhageysta warkiisa isbaarada dalko dhan kama taalo waxaan rabaa walaalan runtu isu sheegin walaal ma ah dalkoo dhan isbaara kama jirto deegaanka aad degantihiin isbaara ka jirta hirshabeelle isbaara ka jirta meelo badan oo dalka kamid ah isbaara kama jirto waa laga gudbay waa laga yimid maxaana looga gudbay dadka looga gudbay dawlad loogama gudbin dawlad kama kicin deegaanka inta hadii 10 kilomitir loo kacana isbaara haday taalo inta hadaa uga baxdan 5 kilomitir ay taalo xamar hadaad aadad sii socotana dhul islaameed aadan marayna kuwa un aad sheeganaysa haybta meeshay doonaa kula ekaadaan aad sii dhax marayso oo 12 isbaarana aad sii marayso gabdhaha dharka looga furana oo odayaasha maxaan ku raadaay looga qaadanayo maxaa kista yarta wartuug dowlad mala darajo male qaadicu tariiq dowlad mala iska dhiciya dadka yac iska dhaha qaadicu tariiq iyo isbaarista dowladdu waa la dagaalsantahay waana la dagaalay waxaan filayaa inaad dhageysateen warkan inaan ka jawaabo waxa keenay waxa waaye xasan haddoo noo haysto inaan doqomanahay anaga doqomana manay dadka ugu sheekeeyay dadkaad ka soo jeedid dabaalo way ugu sheekeeyay ha ogaadaano inaan cid kasta ka xageyno oo cid kasta ka shashayno xasan waxaan rabaa hal su'aal kale inaan weydiiyo waa inuu jawaab u helaa حسن وحربا بدن كان أسيقا مدحوينك مسؤولية دا أولية هاي إنو كعرر أو كرون طمعها بدن كان ما أنت وحيك هلابا مسؤولي أسا مسؤول كأه ما كينيس إنو آدي بال شعب مساكين أو أيقبا يابنو وحيعنا الله أو اسكول لهين أو على إنو كدع دعسدو أو يرادو إسباريستياشا هلاسك قبطو war isbaaristaad adiga qabo weysay cid qabanaysa noo sheeg sakan markaad abgaal 24 saac dhexdood aad tagtid in isbaar ay dhigtaan ay ka qaylisid anigana aan ku soo sheegay isbaarada tan maanta kursiga ugu fadhiisay ay tahay waxaan rabaa magaalada muqdisho 50,000 oo askar joogto dina u samaysatay mahad salaad la yiraahdo oo sharciga xataa ka weyn oo maxkamad la geey karin oo guryaha u dhacayo oo wax horba suubinayo adiga aheedkii shalay معناه شرق دوميناي إن وطن كان شرعي لو سمي نيسا أي دتك كوبوبتو أي معناه بيع مشتري كوبوبتو أي دتك كودش يقولي هو نعد نيجي شرق دوميناي أضو شرعية نو هاي سنو شرعية نو لهن نيجي شرق دوميناي هذا جاي وحنكار ربع حمر ورنبض ما كجرتو حمر إيه شيء نبض ما كجرتو حبيب كست ذا لو دلا ذا لو حوجا قبل لو كفصدا waxaan ku iri jidka baad la iskaga qaada macna magaalada meel kasto isbaarata la lacag lagu qaadin ma leh maxaa ku tusay tan abgaal maxaa ku tusay sheeg bal tan abgaal waxa ku tusay sheeg xasan shiiqow waxaan rabaa oo kale inaan ku tuso isbaar inay meel kasta taalo afgooya ka bax xamar ka bax ila ceelab jibiyaha afgooya aad waa taala marka waa taala markii la aaday baydhabo waa taala waxa kale rabaa inaan ku sheego oo ku xasuusiyo ninka la leeyahay Jamaal ee u shaqeeyay Channel 4 markuu kismaayo ka soo baxay oo shabaab soo aaday meeqa isbaaro soo dhaafay isbaaro Soomaali meel kasta ka taala Soomaaliland dhexdeeda ka taala isbaaro meel ay oolin male Hirshabeelle ad afka mar kasta ku dhufanaysid Hirshabeelle adiga madaxaad oo faqri u yahay Hirshabeelle ninka in la dhisaan ogoleen waa adiga war shalito
aadiya baa inaad tagtay aad nagu aflagaadeysay cadala inaad tagtay aad nagu aflagaadeysay laami uu dhisi maysid waa aragtay meeq bariya jidka ku sii jirtay waxaan ku iri furda aan dhisa dhii maysid dadkii isu tagay wax sameeysta dhii maysid waxaad waxay ku soo aruureen ina anagana aflagaadeysid aniga shalinta waan ka hadlay markuu abaabul hadlaayay وانا شايف انه كونيا انه wax lagu shubtay inuu yahay hotel waxa uu dajisi abaabul oo hotel kugu dagayay qofka rabta inaa ku dirto oo ku caayo abaabul markuu hadlaayay waa dareemay waana dareensanay ina adiga soo dirtay xasan shiiqow ina adiga soo dirtayna waa cadaatay markay maanta macna cali guudlaab oo garabkaada joogo ina ku diiqsatid aad cali guudlaab gasaay ugu jibisid aad tiraahdo macna meeshaas waxa taal isbaara taal kana taal ina tiraadid horta aad iyo aad ayaa ugu xumahay ninkana wax waaye ceebta oo asiga leeyahay markuu rabo inuu sidii adiga hor u sheegtay marka tiraad saxaro ul markii lagu dhufto ay iska gaarto kelmadaas adaa dhihi jirtay dhiiqa lagu halgalooysa adaa dhihi jirtay farmaajo xabad qaade madax iska saar isku dhufo adiga dhihi jirtay macnaa ninka leeyahay farmaajo naag oo furay ayo ilmo ka dhalaa شلي أنت صورنا كوادليسي هذا واحد كانت أنا قلنا أفلقات ديسيت أنا قو أبقى له وحاربت النقش يكتد إسبار كنولا تينا ورا هذا إسبار راس ما أنت أيدت كينا لليرت هنا إسبار راس نقلهن ما أنت حنيها نلاقي سيب له أنا قا فكر كلا قوا إسبار هذا فكر كدولا كقبا إسبار راس صدق عليهن عسكري ما أنت ندفعه أو إحنا قاعدين لما أركلهن وضن كان وضن إسباره مسؤولية داسنا عديقة إسكالي عديقة حسن شيخة إسكالي حبك اللو قاد لا يسي اللو قاد لا لكن ما هنا ضدنا كوتين بريسيد معنا شقضوا ضدنا وحواية معنا إسباري استيال واي حسن شيخو وحان كان ربا أوكالي مقدشو ما يقعيد ما جوكتو كنت ميوا جوكتا دادا لو دعا دادا لو خوغا magaalada dhexdeeda isbaariyaal taala lacag la iska qaada soo tuur hadii kale ma gudbaysid 100 jeer la sheegay tan adiga ku tusto maxay tahay abgaal oo isbaaradiisa waxa ku tuso oo adduunkan oo la daba taagan tahay inaad abgaal ku cambaaraysid oo ku aflagaadaysid maxay tahay aniga ilaa heerkaas aan fahmi lahayn adiga waaye kii shalay muqdisho qaybiyay oo macnaa shabeelada hoose ka gooyay oo koonfur galbeed raaciyay adiga waaye ninka shabeelada dhex inuu gooyay hiiraan raaciyay oo labadoodoon israbin ujeedada marka aad ka leedahay annaga dhibaatada aad la daba taagan tahay caawi casir oo annaga lagu arkan inaad tahay naleeyahay hada abgaala meesha madaxweyne ka ah naleeyahay waxay tahay ilaa had waa fahmi lahayn marka ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inay ogaato annaga deegaanaan leenahay deegaankeena ummad kastaan ku soo dhaweynaa kii madax ka naqdana oo anaga naga dhashayna wuxuu ka shaqeeyaa inuu anagana kala furfuro oo dhibaateeyo xasan sheekh hadii meel kasta ay kaaga timid ee qabaa'ilada meel kasta kaaga keeneen sheekada ha ku furin abgaal isbaar u taalaa wajigii labaad ee dagaalkan galay 3 bilood maxaa haysi 24 saac waxa saaran tahay diyaarad hore gadaal u socotaa nin ay wax ka helaysiin uma muuqatid 24 saac dada guriyahooda iyo dhulkooda la booba danti guud ee ummadda Soomaaliyeed la kala booba asa hadda marka aadi baa tagtay aad waxaad bilowday inaad abgaal ku eedeysid inay isbaaristayaal yihiin ee hool kale ay qabin aad iyo aad ayaa ugu xumahay marka waxaan ku leeyahay mas'uuliyadda laga rabo ha ka dhuumanin mas'uuliyadda adaa iskale wadankan adaa madaxweyne ka ah ilaa isbisiin adaa ka madaxweynaha ka tahay ra'iisul wasaaraha ka tahay waxa ka wasiiraha ka tahay ra'iisul baarlamaanka ka tahay waxa ka tahay maxallaha labada baarlamaan adaa wax kasta adiga madax ka ah marka mas'uuliyadda aday ku saaran tahay mas'uuliyadda adiga wasiir difaaci adiga wax kasta mas'uuliyadda aday ku saaran tahay dadka masaakiinta ee abgaalka ah ha aflagaadeenin hadaad wax u suubinaysin waa ujeedaa si ay u dayaciyiin 4 sano iyo 6 bilood hore u soo martay waxaad u qabatay male hadeerna sidii oo kala ku socotaa
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.